inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. allaha u naxariistay saddex qof ayaa ku geeriyooday halka ay saddex kalena ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay duleedka kaantaroolka bari ee magaalada Burco subaxnimadii hore ee saaka. shilkani baabuur oo uu sababay kadib markii uu la dhacay qaybo kamid ah maamulka iyo howlwadanada jaamacadda Alfa ee gobolka Togdheer. baabuur noocuus yahay nooha kaasi oo u sii jeeday degmada Caynaba ee gobolka Saraar. meydadka iyo dhaawaca dadkani ayaa la soo gaarsiiyay cisbitaalka guud ee magaalada Burco, waxaana ka warbixiyay shilkani taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale agaasimaha guud ee cisbitaalka Burco. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. maanta oo taariikhdu tahay bishii 2022keeda waxa shil gaari ka dhacay duleedka magaalada Yuroobe. shilka gaari oo ay ahaayeen dadka la socday gaari nooha waxaana la socday maamulka iyo ardayda jaamacadda Alfa. allah u naxariistay shilka gaari waxa maanta ku geeriyooday saddex qof iyo saddex ku dhaawacmay. marka saddex qof ee geeriyooday meydkoodii waxa la soo gaarsiiyay cisbitaalka Burco ay imika yaalaan. saddexdii qof ee dhaawacana waxaan ku daweynaynaa cisbitaalka. saddexda qof ee dhaawacmay inan aad u culus mooyee labada kale dhaawacooda aad buu fudud yahay. marka waxaan halkan taasi uga daraynaa eheladii iyo qaraabadii iyo qarankii ay ka geeriyoodanba dhammaantoodba waxaan leenahay samriye iimaanka ka siiyo. ardayda iyo maamulka jaamacadda u socday hawlo tabarucaad ah ay doonayeen inay ku soo daweeyaan dadka kaamamka magaalada Caynaba ku jira oo ay bishiiba ama tagi jireen mar si ay u soo daweeyaan dadkooda ayay u sii socdeen. marka waxaan leenahay ilaahay samriye iimaanka ka siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo qarankii ay ka baxeen. saddexdii qof ee dhaawacmayna cisbitaalka lagu daweynayaa oo gacantaan ku haynaa. hal inanoo dhaawaceedu aad u culus yahay mooye labada kalena aad iyo aad bay wanaagsan yihiin. inta ka warqabtaa shil baa dhacay saaka halka Yuroobe ka dhacay gaari ku dhacay gaari nooha ku dhacay. marka saddex qof waa dhimasho, waa laba haweena iyo nin. kulay intaan hayna dhaawacna waa laba oo iyaguna nin iyo gabadha. marka intii dhimatayna allah u naxariistay leenay inta dhaawacana ha shaafiyo eheladiina dhammaanteena samriye iimaan ilaahay ka siiyo. laakiin waxa jirta khimrad darro badan oo xagga wadayaasha baa jirta saan horba u sheegnay oo waxa weeyaan qaabkooda socodka dabeecadda wadada wax badan ayaa waxa weeyaan darawalinta waqtigan gaadiidka gacanta ku haysa ka qaldan. gaadiidkuna waa badan yahay oo isloognahay. marka waxa weeyaan adigu de sababahaas uma insha Allah ayuunbay keenaya shilalka. wadayaasha hadda qadarsan bulshada imaka iyo mar hore iyo mar walba waxaan leenahay taxadira wadayaasha. qofka darawalka ahay waa inuu ogaadaa gaarigan inuu malag yahay. marka waa inuu taxadiraa oo waxa weeyaan sidii uu naftiisa iyo nafaha uu sidaba u badbaadin lahaa uu ka fikiraa. shilalka ay sababaan gaadiidka kala duwan ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay gobolka Togdheer. waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco.